kulan waxaan wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan iyo si walba aad oo maqlaysaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya waa maalinimo Axad taariikhduna ay ku beegantahay 1 bishii koobaad 2023 qodobada wararkeena ugu doorona waxaa kamid ah dagaal xooggan oo ka socda gobolka Mudug kaasi oo u dhaxeeya maleeshiyaad ka wada tirsan ururka Al-Shabaab kadib markii khilaaf xooggan uu soo kala dhaxgalay mas'uuliyiinta ugu sarreysa ururkaasi kala jabka ururka Al-Shabaab iyo khilaafka xooggan ee soo kala dhaxgalay mas'uuliyiinta ugu sarreysa ururka Al-Shabaab iyo magacyadooda iyo waxa la isku hayo ayaan halkan idinku soo doona ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo soo bandhigay amiiro waaweyn oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo ay ku soo qabteen deegaanadii ugu dambeeyay ay dagaalka kala galeen iyadoo gobolada dhexe maalmihii ugu dambeeyay dagaal xooggan ay ka wadeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waliba kuwa maamulada xogii ugu dambeeyay iyo goobaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay hadda ku sugan yihiin iyo deegaanada laga qabsaday ururka Al-Shabaab ayaa sidoo kale idin soo gudbin doona khilaaf culus oo mar kale ka dhax qarxay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Karaash iyadoo mas'uuliyiintaasi ay u taala hawl weyn oo la xiriidha xasuuqii shacabka gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood ay u geysanayeen ciidamada Somaliland khilaafkan ayaana ku soo aadaya xilli ciidamada Somaliland ay xasuuq ba'an ku hayaan iyo waliba gabood fali iyo toogashooyin toos ay u geysanayaan shacabka Puntland ee ku sugan gobolka Sool xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya ku matala gobolka Sool oo war cusub ka soo saaray xaaladda ka taagan halkaasi iyagoo cadaadis ku saaraya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo qaatay go'aan adag oo laga qaadanayo xaaladda ka taagan halkaasi iyadoo mudaharaadyadu ay wali ka sii socdaan magaalada Laascaanood mucaaradka Somaliland iyo waliba waxgaradkana ay ugu baaqeen xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi sida ugu dhaqsiyaha badan inuu uga saaro ciidamada Somaliland ee ku sugan magaalada Laascaanood dibadbaxyada ka magaalada Laascaanood ayaa ku fiday gobolka Sool iyo waliba Cayn iyadoo gobolka kale oo aan ahayn labadaasi gobol ee hore aan ku soo sheegnayna ay ka bilowdeen mudaharaadyo cusub oo looga soo horjeedo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi xaalad cakran ayaana ka taagan magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland qodobadaasi kuwa kale faahfaahsan ayaad warkeena kaga bogan doontaan hadduu eebaydmo balse waxaan si qadarin iyo xushmad leh idinka codsanaynaa hadduuna soo gaaro muuqaalka like saara oo aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga nagu soo bira wanaadi kamaad celinaa la joogitaankeena mahadsanidin aynu ku bilownay maalmihii ugu dambeeyayba waxa isa soo tarayay khilaaf xooggan oo u dhaxeeyay mas'uuliyiinta ugu sarreysa ururka Al-Shabaab iyagoo isku khilaafsan qaabka loo wajahayo dagaalada lagula jiro ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waliba mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsanaa ururkaasi oo ayagu doonayay inay isku dhiibaan dawladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca kale waxa iyadana khilaaf uu ka taagnaa cidda qabanaysa mas'uulka ugu sarreeya ururka Al-Shabaab iyadoo markaasi ay isku khilaafeen mas'uuliyiintii u tartamayay xilka ugu sarreeya ururkaasi khilaafkii ugu horeeyay mas'uuliyiinta markaasi ay isku khilaafeen waxa uu dagaal ku dhaxmaray magaalada Jilib halkaasi oo ay iskaga laayeen maleeshiyaad ka wada tirsan ururkooda kadibna dawladda federaalka Soomaaliya ayaa bilowday dagaal xooggan oo markaasi ay dhul kaga qabsanayso iyadoo ciidamadooda u jeheeyay sidii ay iskaga caabin lahaayeen dagaalka kaga imaanaya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya balse khilaafkii dhaxdooda ka taagna lama xalinin oo wali waa uu si xoogaystay iyadoo shalayto uu sababay in dagaal xooggan maleeshiyaad kala taabacsan mas'uuliyiinta ugu sarreeya ururkaasi uu ku dhaxmaro gobolka Mudug halkaasi oo ay iskaga laayeen xubno ka wada tirsanaa maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab mas'uuliyiinta shalayto uu ku dhaxmaray dagaalka gobolka Mudug waxa hogaaminayay mas'uul lagu magacaabo Xuseen Cali Fiidow oo ururka Al-Shabaab u qaabilsan xiriirka gobolada iyo waliba odayaasha dhaqanka iyadoo halkaasi uu dagaal ku qaaday mas'uuliyiin sarsare oo kaleeto oo markaasi kamid ahaa mas'uul Tayyib iyo waliba Sharmaake oo ayagu markaasi doonayay inay isku soo dhiibaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyaga iyo waliba ciidamo badan oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ay wateen Xuseen Cali Fiidow oo markaasi kamid ah mas'uuliyiinta sarsare ee ugu sharta badan ururka Al-Shabaab isla markaana ururka Al-Shabaab u qaabilsan xiriirka gobolada dalka Soomaaliya iyo waliba odayaasha dhaqanka ayaa weerar ku qaaday laba mas'uul oo lagu kala magacaabo Sharmaake iyo waliba Tayyib oo markaasi watay ciidamo aad u tiro badan oo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ka tirsan kuwaasi oo qorsheynayay in ay isku soo dhiibaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Mudug maalmihii ugu dambeeyay dagaal xooggan ayaa halkaasi ka socday waxa ururka Al-Shabaab ay isku soo dhiibayeen si talantaaliya iyagoo lagu jabiyay dagaaladii ay la galeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed mas'uuliyiintani dhammaantood ka wada tirsan ururka Al-Shabaab waxa ay ka soo wada jeedaan gobolka Galguduud waxa ayna isku khilaafsan yihiin dagaalka in la sii wado maadaama looga taageeronaaday ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna ay soo hoyeen guulo waaweyn laguna jabiyay dagaaladii ay la galeen dhinaca kale ururka Al-Shabaab ayaa gabi ahaanba gacanta laga dhigay dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay gobolka Shabeellada Dhexe oo dhammaanba ay gacanta ku hayeen iyo waliba gobolka Hiiraan
waxa ayna dagaalku hadda ay ka socdaa gobolka Shabeellada Hoose, gobolka Galguduud, Mudug iyo waliba gobolka Bay oo ka tirsan gobol maamulka Koonfur Galbeed. khilaafkan ururka al-shabaab ee dhaliyay in dagaal la isku qaado isla markaana ka dhashay dhimashada iyo dhaawaca waxa uu ka soo bilowday mas'uuliyiinta ugu sarreysa ee lagu kala magacaabo afayeenka ururka al-shabaab Sheekh Cali Dheere iyo madaxa amniyaadka oo lagu magacaabo Mahad Karatay iyo sidoo kaleeto Axmed Dirir oo isagana markaasi ah madaxa ugu sarreeya ururka al-shabaab. labadan mas'uul ee horay aan ku magacawnay ee ah afayeenka ururka al-shabaab iyo madaxa amniyaadka waxa ayagu ay hungureynayeen oo doonayeen inay qabtaan xilka ugu sarreeya oo markaasi uu hayo shakhsi ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya oo ahaa mid liita maalmihii ugu dambeeyayna la shaaciyay in uu geeriyooday. dagaalka gobolka Mudug shalay ka dhacayna waxa uu daba joogaa qabashada xilka ugu sarreeya ururka al-shabaab oo markaasi mas'uuliyiin badan ay u arkaan in marba uu soo mareynin haddii uu soo mareynin kursiga ugu sarreeya ay gabi ahaanba iskaga baxaan ururka al-shabaab oo ay isku dhiibaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. dhinaca kale taliyaha ciidamada dhulka ee dalka Soomaaliya Taliya Biixi oo ka hadlay ciidamada laga soo celiyay dalka Eritrea ayaa sheegay in gobollo kaleeto oo hadda dagaal uu ka soconin oo ay ku sugan yihiin ururka al-shabaab laga daadin doono ciidamadaasi isla markaana dagaal cusub laga furi doono. Taliya Biixi ayaa sheegay ciidamada Eritrea ka soo laabtay in loo daadgureyn doono gobolka Gado ayna dagaal ka bilaabi doonaan gobolka Jubbada Dhexe oo lagu eedeynayay maamulka Jubbaland inay ka gaabiyeen la dagaalanka ururka al-shabaab oo waliba ay heshiis ku yihiin in ururka al-shabaab ay gacanta ku hayaan gobolka Jubbada Dhexe si aysan markaasi maamulkuna ay gacanta ugu hayaan Jubbada Hoose gaar ahaan magaalada Kismaayo oo ay ku taalo dekada markaasi dhaqaalaha uu ka soo galo maamulka Jubbaland. qorshaha dawladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso in gabi ahaanba gobolada dalka Soomaaliya dagaal lagaga furo ururka al-shabaab si aysan iskugu soo gurmanin isla markaana loo xoreeyo guud ahaanba dalka Soomaaliya waxa ka hor imaaday madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo ku-xigeenkiisa maalmo ka hor waraaq ay soo saareen oo ku socotay dawladda federaalka gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiisa waxa ay cabasho ka gudbiyeen mas'uuliyiin sarsare oo isku urursanaysay gobolka Gado kuwaasi oo ayagana cilaamiyay in dagaal ay ku qaadayaan gobolka Jubbada Dhexe iyo waliba caasimada Jubbaland ee magaalada Bu'aale oo ururka al-shabaab ay gacanta ku hayaan waxa ayna sheegeen inay carqaladaynayaan ayna xiisad cusub ka abuurayaan Jubbaland gudaheeda balse madaxda ugu sarreysa dawladda federaalka Soomaaliya waxa ka go'an in gobol walba oo ururka al-shabaab ay kaga sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya iyo goob walba oo ururka al-shabaab ay joogaan in dagaal lagu bilaabo si guud ahaanba muddo kooban looga saaro ururka al-shabaab guud ahaanba gudaha dalka Soomaaliya. dhanka kale khilaaf culus ayaa mar kale ka dhex qarxay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa iyagoo isku khilaafsan qaabka loo wajahayo dadka reer Sool ee lagu xasuuqayo halkaasi. madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaash ayaa u soo jeediyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani in ciidamo tiro badan loo diro gobolka Sool oo ay dagaal la galaan ciidamada Puntland ee dadka shacabka ku xasuuqaya magaalada Laascaanood halka Saciid Cabdullaahi Danina uu sheegay in Puntland aysan u diyaarsanayn in dagaal ay la gasho Somaliland isla markaana ciidamadoodu aysan hadda heegan la gelinin ayna diyaar u ahayn in ciidamadu ay dagaal ku qaadaan deegaano ay ku sugan yihiin ama ay gacanta ku hayaan maamulka Somaliland ayaa ciidamadii ugu badnayd waxa ay soo dhoobtay xadka ay la wadaagto Puntland iyadoo markaasi ka cabsi qabta in loo soo gurmado shacabka ciidamadeedu ay ku xasuuqeen magaalada Laascaanood iyadoo dhinaca kaleetana magaalada Buuhoodle laga dareemayo dhaqdhaqaaq ciidan oo markaasi ay wadaan kooxaha iyo waliba jabhadaha deegaanadaasi u dhaqdhaqaaqa ee loo yaqaan SSC ayna sheegeen in dagaal ay ku qaadayaan ciidamada Somaliland walow awoodda ciidan ee markaasi Somaliland lagu qiyaasay inay leedahay ay tahay mid ka quwad badan ciidamada deegaanadaasi ka dhaqdhaqaaqaya balse shacabku waxa ay wadaan abaabul ay isku hubaynayaan oo ay kaga hortagayaan ciidamada booliska iyo kuwa militariga ee Somaliland ee sida tooska u xasuuqaya shacabkooda ku sugan magaalada Laascaanood. xiisada magaalada Laascaanood ayaa taabanaysa meelo badan iyadoo markaasi ay guux xoogan ka dhalisay guud ahaanba dalka Soomaaliya isla markaana siyaasiyiin badan xildhibaano iyo waliba mas'uuliyiin ay qabaan in dagaal lagu qaado Somaliland. xiisada ka taagan gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood ayaa gashay maalintii toddobaad iyadoo waliba dadku ay sii wadaan dibadbaxyadooda tan iyo intii ay bilowdeen dibadbaxyadan waxaa la dilay in ka badan 12 qof oo shacab ah halka dhaawacuna uu marahayo 32 xubnood oo markaasi ka tirsanaa dadkii sida nabdoon u mudaharaadayay. ciidamada ayaa wali sii wada gaboodfalada ay ka geysanayaan magaaladaasi shacabkuna waxa ay ku dhagan yihiin go'aankii adkaa ee ah in ay soo gudbistaan cabashadooda iyo tabashooyinkooda iyo dadkooda sida tooska loo leynahayo. shacabka ayaa markii ugu horeysay waxa ay u dibadbaxayeen dad maalin walba lagu dilayo magaalada Laascaanood oo aan la garanaynin cidii dishay
toogashooyin toos oo ka dhacayay magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool balse markii dambe xiisadii waa isbedeshay oo ciidamada militariga iyo kuwa booliska ee Somaliland ee ka amar qaata madaxweyne Muuse Biixi ayaa bilaabay toogashooyin toos taasi oo ku cadaatay maamulka Somaliland inay ahaayeen dadkii iyagu markaasi leynahayay ee tooganayay ee dhibaatada xoogan ka waday gobolka Sool mucaaradka Somaliland ayaa ugu baaqay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi inay ciidamada ku sugan gobolka Sool sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga saarto si loo dejiyo xiisada ka sii daraysa ee ka taagan halkaasi odayaasha dhaqanka culimada ayaa dhinaca kale baaq u diray madaxweyne Muuse Biixi in ciidamada laga saaro halkaasi si loo dejiyo xiisadani oo markaasi loo wajaho qaab odayaal iyo waliba culimada loo diro dhinalka madaxweyne Muuse Biixina uu sheegay in ciidamadu ay amar u haystaan in gebi ahaanba la soo afjaro cid walba oo markaasi isku dayaysa in ay waxyeelayso jiritaanka iyo qaranka jamhuuriyadda Somaliland waa soo hadalka uu dhigay afayeen u hadlay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ayaa sheegay dadkii la laayay inay ahaayeen dad markaasi carqaladeynayay amniga ka jira guud ahaanba gudaha Somaliland waliba in ay ahaayeen dad markaasi aan doonaynin jiritaanka qarannimada Somaliland waa soo hadalka uu dhigay halka mucaaradka iyo waliba xubno ka tirsan golaha wakiilada ay ku eedeeyeen in uu ahaa falkani fal la soo abaabulay oo laga abaabulay madaxtooyada Somaliland ee ku taala magaalada Hargeysa isla markaana ay mas'uuliyadeeda qaadayaan madaxweynaha iyo waliba saraakiisha ciidamada booliska iyo militariga dadka lagu laayay magaalada Laascaanood waxa ay u badnaayeen caruur iyo haween halka dhowr qof kaliya ay ahaayeen sheekhi caanka ahaa ee markaasi loo yaqaanay Sheekh Bade Faarax Macallin oo markaasi isagu kamid ahaa odayaashii doonayay in xaaladda ay dajiyaan isla markaana rabay in ay ciidamada kala hadlaan xasuuqa iyo toogashooyinka ay u geysanayaan caruurta iyo haweenka arrintan guracan ee ciidamada Somaliland ay kula dhaqaaqeen dadka reer Laascaanood talow Puntland iyo dawladda federaalku talaabo noocee ay ka qaadi doonaan maamulka madaxweyne Muuse Biixi ma loo argudi doonaa shacabkii sida tooska loogu toogtay magaalada Laascaanood mise af iyo aamus ayay ku dhamaan doontaa qodobadaasi ayaa daawadayaal barnaamijkeena ugu dambeeyay tan iyo mid ka xiga intaan ka kulmayno waxaan inaga tagaynaa amaana Allah